بسم الله الرحمن الرحيم دمان أمة الصوماليات وحنكو سلام يا سلامة إسلامك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحمد عيبي هاي أبح محمد علمي سرادله وحان هالكن شركة شرائد أنا وقبنا دمان أنا جوا رير حاج محمد علمي سرادله هو يدود سرير علشوك أودين عايق فجدي أنا جوا كتشوابينا جوابت دلمي وعبد الرحمن محمد مشالة كل كعي هوين كرير علم سرادله رير علشوك مرن هوابينته أولتجي كان دحوضه دتك إهلك مدنيال مروين أنا جوا هوين كرير علم سرادله رير علشوك ودقن مقالة عرقابة قبل كسناق وحنا هالكن كجوابينا هذا الاسلوب جري هنشباد هفر marin habaabin iyo doodsi lagu sameeyo xuquuqdayada iyo dhulkayaga aan ku lahayn degmada Ceergaabo gobolka Sanaag waxa ka jawaabaynaa hadal ay saxaafada ka sii daayeen ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Bulshaale iyo odayaal ay isku jifay yihiin balse aan hubno in uu si khaldan ugu waramay qodobka koowaad marka koowaad waxa aan ummadda Soomaaliyeed muslimiinta ah oo dhan inta hadalkiisa dhageysatay u sheegaynaa cidda uu ninkaasi duulaanka ku yahay ee uu u hanjabay inay tahay dumarkayaga halkan fadhiya oo dhalasho ahaan dhulbahante jifa ahaana ka soo kala jeeda cilmi naaliye iyo aadan naaliye haddaan hoos isu dego waxa aan kala nahay reer cilmi siraadle iyo reer cudjoog oo deegaan ku ah magaalada Ceergaabo dadka sida khaldan uga falceliyay ee meelaha kale la doontay waxaanu leenahay wax hubsada hoosima halba la siistay number 2 muddo dheer waxa aanu qarsanaynay oo aanu go'aansanay in aanaanu ka hadlin goodiga hanjabaada iyo tacadiyada ninkaasi oo shakhsiyaad dulmiga ugu heerinaya nagu hayeen waxay gaadhay hooyaday oo Sureer Jaamac Jibril Sureer Culjoog oo da'deeda lagu qiyaaso 90 aadana garabkayga fadhiday inuu askar kula heshiiyay inuu xiro oo inta la jiido waqti maghrib ah lagu xiro jeelka markii dambana isku wada qabsaday xarigii uu soo farsameeyay waxa uu gaaray in rag aanan hadda magacyadooda sheegaynin ama aanan tilmaamaynin oo ay dhulka heshiis ku yihiin in la agajugleeyo aniga oo wax ah la xiro taariikhdu markay ahayd 22kii bishii hadda dhamaatay aan in 5 cisho ahna ilaa 28kiina damiinku joogay laakiin waxa la waayay wax sharci oo la igu sii hayo oo ama la igu sii xiro hadaba maanta oo ah markii ugu horeysay abidkayo ee aanu meel saxaafad ah soo fadhiisano waxa nagu kalifay ninkaas Cabdiraxmaan Cali Bulshaale oo noo soo hanjabay horena noo dulmiyay sida ay dadku wada ogyihiin waxa uu aragnay in dadka war been ah iyo cadaawad been ah oo ugu sheekaynayo number 3 waxaanu nahay qoysas dhulbaanta ah ka daadiganaa Laya Axmed waxa aanu qabnaa inaanu nahay deegaanka aan ka hadlayo waa deegaanka Ceergaabo oo waliba hanti muuqata iyo taariikh guurta ah ku leh magaalada Ceergaabo iyo nawaaxigeeda mana qabno sida uu u hadlayo in ay sax tahay ee uu noogu sheeganayo deegmadan si uu ugu xalaashado ama dhulkayaga ama uu kula wareego hantidayada waliba waxaan aaminsanahay in aanay jirin qof reer Ceergaabo ah oo Laya Axmed ah oo fikirka uu fidinayo la qaba aad iyo aad waxaan ugu mahad celinaynaa dadka kala duwan ee ilaa maalintii uu nagu bilaabay dulmiga ilaa maanta af iyo adinba si xaq loogu helinayay inoo muujiyay in ay ka xun yihiin tacadiga Cabdiraxmaan Bulshaale noo joogtay number 4 dhulka annaga leh cadeyntaasi waa cadeyntii dhulka ee dawladda hoose dariskayaga iyo dawladda hoose oo waraaqahan iyo waraaqo kale oo aan haynaba ku muujiyay oo ay ugu marakaceen annagu inay noo cadeeyeen annagu leenahay muddo 2 jeer qoraal ay ka soo saareenba Cabdiraxmaan waxa noo dhaxaysa
wadacad oo uu ka degan yahay dhinaca kale wuxuu ka degan yahay wadada la jidka ah ee na dhexmarta dhinaca galbeed anaguna waxaanu ka deganahay dhinaca bari wada ayaanu labada dhinac ka kala deganahay sida aan idin sheegay dhulka iyagu dhul isku khaldami kara ma aha dhowr qoraal ayaana laga soo dawladda hoose ka soo saartay oo midka aan idin tusay uu ka mid yahay cid kasta oo goobta istaagtaana iyadoo oo murankiisa la yaaban ayay ka noqotaa goobta maxkamadda sare markii ay timi goobta waxa ay ka soo saartay nuqulkan waaye annaga noogu cadaysay inaanu leenahay iyo waraaqaha kan oo ah kuwii saxiixyada ay ku yaalaan gudoomiyihii iyo gudoomiye ku-xigeenadii soo saxeexay inuu dhulkan yahay dhul annaga nagu cad number 5 waxaan si xushmad leh uga raali gelinaynaa maxkamadda iyo gudoomiyaha maxkamadda sareba hadalkii deelqaafka ahaa ee masabidka usoo fadhiistay number 6 numberkani waxa aan kala hadlayaa waa odayaashii adeeradayada ahaa ee soo fadhiistay goobta ee Cabdiraxmaan kula jiray shirka jaraa'id odayaasha adeerada ah noogu beegan ee hadalka ugu hiilinayay markii Cabdiraxmaan Bulshaale ee xaq darrada iyo hanjabaada nagu hayay waxaan leenahay adeerayaal hablihiinii baanu nahay sureer culi joogna waa eedadiina ma waa inaadeertiin ehelkiin baan nahay waliba qaraabo iyo daris iyo deegaan wadaag bayna nahay abtirsiyada buu hal habeen naga kiin xigaa kuwii aanu magansan lahayn ayaa tihiin nagama qabato idinka oo aan na waraysan in aad hanjabaadiisa iyo goodigiisa ku soo garab istaagtaan run ahaantii idinma ciil qabno oo idinma cambaaraynayno waayo waxa aanu aragnaa inaad hesheen war khaldan sida aan horeba u sheegay waxaanse idiin ekayd in aad wax xubsataan oo dhanka iyagana aydin naweydiinsataan number 7 waana gabagabadii qaybtani waxay ku socotaa waa Cabdiraxmaan Maxamed Cali Bulshaale waxaan leeyahay waxa ku horanay waa qabri waxaad ogtahay dadkii wixii goobta inoogu aad nagu haysato isa soo taagay way ku arkeen in aad gardarro nagu haysato allana kuma dhuuman kartid maalinta yawmal qiyaamaha iyo maantaba kuwii aad u hiilin lahayd baanu nahay kuwii aad hiil u raadsan lahayd ood garabadaada dhigi lahayd afarta jifideeda ama nihin eergaabana wayna wada leenahay ee ma kala lihiin qof dhulbahantaa baan laga lahayn qofna la yaxmada baan laga lahayn dadku waa u siman yahay aniga adiguna waynoo simanahay annaga iyo adinkuna waa u simantiin waxaan ku leeyahay hanjabaada iyo goodiga aad soo dirtayna wixii aad ka hesho adiga uunbaa madaxdeeda doonan naalaya axmed Soomaali weyn dhulbahante iyo intii maqashayba iminkana aniga i maqlaysaa malqaati bay ka tahay waxaan kaloo ku xusuusinayaa in aan aniga iyo hooyo mooyaane qof reer xaaji afweyna qof reer cilmi siraad ah qof reer curjooga in aanu marna maxkamad kula iman marna kula hadal dhibaato aad ka tirsanaysan aysan jirin aniga iyo hooyo ayuu bukiisku nagu ekaa waliba 7 sano iyo something adiga hooyo ahay anigu berihii u dambeeyay ayaan ku soo galay umada Soomaaliyeed dhulbahanta weyne iyo naalaya Axmed gabi ahaan u sheegaynaa inuu kiiska oo Cabdiraxmaan sheegay inuu soo gabagaboobay oo uu fulay aanu kiiskii wali dhamaan ee uu socdo gabagabadina wali la gaarin hadalkayga hadii wax dalqaaf laga dareemo waan idin ka raali gelinayaa